وبدل وابري هلا بارو وبدل وابري ما شاس وحوي أم بهلا كلام بين نقطي الجار هلا كفيري ولي وحان دي شيء يا إذا سيبلن قال يا تياتر كان هذا اللي دسي يوم حلقان لقول دسي فنان باسكو قرحن دونا فنان باسكو قرحن دونا هاي لوبنا كلمة صباح wanaagsan saaxiibada ku xiran channelka YouTube-ka ee xogta fanka maalin wanaagsan meel ka soo joogtaan waa 28 bisha Janaayo 2020 maantana muuqaalkeena saaxiibayaal waxaan ku eegi doonaa dhacdadii xalay ka dhacday caasimadda Soomaaliya Muqdisho kaasoo ciidanka booliiska Soomaaliya ay xabsiga u dhaadhiciyeen fanaanka weyn Cabdi Dhaanto waa maxay sababta loo xiray fanaanka ma dhabaasatoon la xiriira in shabaabnimo fanaanka loo xiray maxaa ka jira in loo haysto war uu baahiyay oo ku saabsanaa in qarax uu ka dhici doono tiyaatarka qaranka sidee arintiisa ay ku wajeen hay'adaha ammaanka maxaa ka jira in loo dhaadhiciyo xabsiga dhexe xamar oo sugayo maxkamadda militariga goormeysata goorta ugu dhow kiiskiisa la gudagali doono maxaa ka jiraan shakhsiyaad kamid ah hay'adaha ammaanka inay soo dacweeyeen fanaanka Cabdi Dhaanto ma dhabaase in nimcaan hilaa culu kuleeyahay kiiska loo haysto Cabdi Dhaanto waa maxay sababta ku qasabtay fanaankan Cabdi Dhaanto in bartiisa Facebook uu ku baayo muuqaal uu ku sheegayo tiyaatarka qaranka oo ka dhici doono qarax ismiidaamina dhammaan warbixinadan ayaan ku eegi doonaa iyo sababta loo xiray fanaanka iyo cidda soo dacweysay iyo waliba hadii uu ku xiran yahay fal la xiriira shabaabnimo oo loo haysto waa muuqaalka maanta falanqeyn doona saaxiibada ku xiran channelka YouTube-ka ee xogta fanka mar kale u diyaar garooba muuqaalka maanta iyo dunida inta guud galinsa falanqeynta sheekadan iyo waliba hadaladii fanaanka uu qudhiiso bartiisa gaarka ee Facebook ku baahiyay aase ka hormariyo qadar yar oo idhaha halkan waa channelka xogta fanka waa meesha kaliya ka heli karto sheekooyinka la xiriira arrimaha fanka madadaalada taariikhda fanaaniinta kuwa hadda iyo kuwii hore iyo dhamaanba marxaladda fanka ku geedaaman ayaa halkan ku soo bandhignaa daawade adigu qudhaada tala ayaad nagu leedahay oo nala wadaagi kartaa wixii sheekooyin ah oo aad hayso iyo waliba arrimaha fanka halkan waa bartan rasmiga ah aan ku soo bandhigno arrimaha fanka madadaalada iyo taariikhaha fanaaniinta kamid noqo saaxiibada sida joogtada halkan ugu xiran subscribe dheh gambareelkana taabo muuqaal walba halkan aan soo gelino oo soo gaariya kuma sanid hadii aad taa daawada nagu soo biiray soo dhawow waa hagaag isku soo noqosho wanaagsan intaan guud galin xariga fanaankan oo xalay ciidanka booliiska Soomaaliya ay ku xireen magaalada Muqdisho bal aan dib ugu laabto muuqaal fanaankan ee Cabdi Dhaanto bartiisa gaarka Facebook saddex cisho ka hor uu ku baahiyay asagoo xilligaas kaga hadlayay ama sheegayba in tiyaatarka qaraxa waa tiyaatarka qaranka dib dactir weyn lagu sameeyay kaasoo la filayo 6 bisha February in xarigu ka jiro madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay fanaanku qarax ismiidaamina oo ay ka dhici doonaan oo rag fanaaniin ay geysan doonaan sidoo kale waxa uu sheegay in hobalada waabari ay ku jiraan koox kamid ah ururka al-shabaab qatar badan oo dhanka amniga ay ka jirto waxaana soo baxaya muuqaalo iyo waliba warbixino ku saabsan in fanaanka loo haysto hadaladaas bartiisa Facebook oo ka sheegay aan dib ugu laabto muuqaalkan iyo waliba xilliga fanaanka hadaladaas uu ka yiri wixii ka dambeeyo markaa dhacay in sababta uu markaa uu ku yiri tiyaatarka qaraxya ka dhacaya مسلسلkaas markaan daawado markaas anna waxaan sheegi doonaa laakiin fanaaniin badan oo wadaninimo ku qaraabanaya ayaa kaarar badan sita wabadalada waa bari halla baaro wabadalada waa bari meeshaas waxa weeyaan bahal galeen bay noqotay il gaar ah lagu fiiriyo waliba waxaan idin sheegayaa إذا سيبلن قال يا تياتر كان هذا اللي دسي يوم حلقان لقول دسي فنان باسكو قرحن دونا هاي لوبنا كلمة داس أنا أدبر نفسي ذا وجه على هاي أبغى هو ننتج أدبر نفسي على هاي أبغى هو ننتج أو واحدة من مدليو afar wiil buu dhalay marka maadaama afar wiil dhalay abahay afar tanadaas waxa weeyaan waa aad baan isku ilaalina
aad baa soo ilaalnaa marka laakiin waxaan idiin sheegayaa ciidanka amnigu fanaaniinta ha baadhaan hadalkaygaas kaftanka ah yeenan dhayalsanin gobollada waa beri ha la baadho far baa ku godan ahay far baa ku godan ha la baadho anigu haddaan wax sheego moogta hadal midda kale dadka daawani waxaan u sheegaya cabdidhaanta hadduu wax sheego cabdidhaanto hadda dawladda laftirkeedu ma rumaysanayso waxaan sheego sababta u rumaysanaysin maxaa leeyahay ninkan waa nin mucaarada waa nin maafiya wuxuu rabu iska sheegayaaye seen ku aaminaa laakiin goormay ogaanayaan markii w jugjug wacwac ahay laakiin ana waxaan idiin sheegayaa waan digniintii ugu dambaysa waa maxay fanaaniinta hadda ninka hadda odayga uu hordhaca u yahay oo hadda baaritaankiisa aanan ka hordhacaynin waxaa ka waaweyn kuwa kale waaweyn baa jira asaga waxaa la yidhi mushaaraadkii waxaasuu qaabilsanaabe mushaaraadkaay sheegayaan maxaa ta war kuwan waxay qaabilsan yihiin kuwan mushaaraad ma qaabilsanin waxay qaabilsan yihiin macal gabdhahay bixiyaan ma garata gabdhaha ayay bixiyaan waa wadaaddo cimaamaday wataan ma jirto niman kor u kaaje weeyaan kor u kaaje marka waxaan dhihi lahaa fanaaniintaas ha la baadho ha la iska ilaaliyo anu kuma dheeraanayo waxaan ugu dheeraan waxaa weeyaan madi ma ihi laakiin anigu laangaabna waa iska ahay moogta laandheerihii laangaabnimaa bedesho ma fahamteen meelahaasna aad uguma badnin annago ma garateen laakiin waxaan idin sheegayaa oo xaqiiqadu ay tahay in arrimo waaweyn ay soo socdaan arrimo waaweyn fanaaniinta anigu ma rabo inaan hadda magacyadooda inaan sheego in hebel idhaahdo ma jiran wallaahi billaahi tallaahi kun fanaan baan ognahay kun fanaan oo 5 kaar wata oo meelo badan laga soo kala diray laakiin anigu baddaas ma gelaya anigu amnina kama shaqeeyo nin shacabaanahay naftaydana waan u turayaa sidaas darteed kuma dheeraanayo marka kaftanka markaan xaggaa uga soo tago maxaan ka aqaanaa nin waa hagaag isku soo laabasho wanaagsan waan daawanay cabdi dhaanto dabcan dhahaya tiyaatarka qaranka waa la isku qarxin doonaa hawlada waa beri ha la baaro waxaana la rumaysan yahay asaga oo dagaal weyn kala dhaxay nimcan hilaac oo hadalladaas dhan ay sabab u noqotay in uu hadalladaasi bartiisa Facebook ku baahiyo kasoo hadallada nimcan waa fanaanka cabdi dhaanto maxaa xalay ka dhacay muqdisho sidaas loo xiray wararkii ugu dambeeyay wararka laga helay degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in ciidanka booliiska ay xalay ay xireen fanaanka weyn Cabdi Dhaanto oo kamid ah fanaaniinta reer Muqdisho laakiin ka soo jeeda deegaanka dowlad deegaanka Soomaalida ay jigjiga xariga fanaanka ayaa sida warar hordhac ah aan helin ay sheegayaan waxa ay ka dambeysay kadib markii maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada uu ku baahiyay ama uu ku sheegay fanaankan in nabadgelyada Soomaaliya ay soo bandhigtay shakhsigii fanaanka ahaa kaas oo Cabdi Dhaanto bartiisa Facebook uu ku baahiyay in la qasbay fanaanka oo koronto lagu qabtay ama muuqaal kan laga soo duubo mid awood loogu keenay fanaanka oo aysan ahayn wax uu kamid ah ururka Al-Shabaab Cabdi Dhaanto ayaa qoraal ku daabacay bartiisa Facebook waxa uu ku sheegay xilligaasi in fanaanka Cabdirashiid Gaarane kaas oo kamid ah ururka Al-Shabaab afkiisana ku qirtay in Cabdi Dhaanto yiri nabadgelyada ayaa xoog u adeegsatay fanaanka tacadiye ayuu la kulmay xoog ayaa looga keenay koronto ayaa lagu dhajiyay eriya kale oo bartiisa Facebook ku daabacay taas oo loo arko in fanaanka uu sabab u noqotay xarigiisa ciidanka nisa inay ka shakiyaan sarkaal ka tirsan ciidanka booliiska ayaa xaqiijiyay in la soo xiray fanaanka Cabdi Dhaanto xilli uu ku sugnaa degmada Hodan sidoo kale sarkaalkan booliiska oo channelkan YouTube-ka xogta fanka uu la xiriiray ayaa waxa uu inoo sheegay in xariga fanaankan ay sabab u ahayd qoraalka bartiisa Facebook oo ku daabacay oo ku aflagaadiyay hay'adaha ammaanka dawladda sidoo kale la jiraan shakhsiyaad kale oo si gaar ah u soo dacweeyay asaga dacwadiisa ay ka taalay degmada taas oo ay sababaysay xariga fanaankan
sidoo kale maalmo kahor fanaankan cabdilaanta ayaa muuqaal uu ku baahiyey baraha bulshada uu soo dhigay waxa uu ku sheegay in la isku qarxi doono tiyaatarka qaranka dhawaana oo dib loo furi doono tiyaatarka qaranka waxaa lagu dhisay barnaamijka la yiraahdo isxilqaan kaasoo madaxda qaranka iyo shaqaalaha dowladaba ay ka qayb qaateen waxaana furitaankiisa lagu soo aadeeyay sanad guurida saddexaad ee kasoo wareegatay markii la doortay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo kaasoo ku beegan 7 February oo tiyaatarkan la doonayay xilligaas in xariga laga jiro fanaankan ayaa hadda waxa uu ku xiran yahay saldhigga booliiska degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxaana ila xogaal ay saraakiisha booliisku ay noo xaqiijeen in isla xalay laga wareejiyay saldhigga booliiska loona wareejiyay taliska hay'adda NISA si halkaasi baaritaano waaweyn lagu sameeyo fanaanka cabdilaanta ayaa loo haystaa 3 kiis waa kiiska koowaad in bartiisa Facebook muuqaal live oo soo galo uu sheegay in tiyaatarka la isku qarxin doono marka uu xariga ka jiro lana weydiin doono xogtaas halkuu ka keenay cidda siisay intaba qaladka labaad ee lagu haysta fanaanka ayaa ah inuu bartiisa Facebook qoraal ahaan uu ku daabacay in fanaankii NISA ay soo bandhigtay ee Cabdirashiid Gaarane uu sheegay cabdilaantu in la qasbay korontona loo adeegsaday taasna ay tahay hadal xoog ah looga keeno fanaanku ka mid ah al-shabaab kiiska kale saddexaad loo haysta cabdilaanta ayaa ah in shakhsi ka mid ah dowladda uu soo dacweeyay kaas uu ku xadgudub bareer uu ku sameeyay kadib markii qoraalo anshax xumo oo bartiisa Facebook uu ku daabacay fanaanka taasoo keentay in shakhsiyan ka mid ah mas'uuliyiinta dowladda uu soo dacweeyo fanaanka weyn cabdilaanta ayaa hadda wajahaya eedeemo waaweyn oo culus oo hay'adaha ammaanka ay ku haystaan waxaana suurtagal ah in kiiskiisa uu noqdo mid weyn ayna ka soo muuqdo maxkamadda ciidanka haddii lagu helo mid ka mid ah saddexdan kiis oo hadda fanaanka uu wajahayo ma jirto ilaa hadda cid arrintiisa dhex gashay ku saabsan in la fududeeyo sideenta fanaankan laakiin cabdilaanta ayaa barihii dambe maalmihii ugu dambeeyay waxa uu bilaabay in bartiisa xiriirka bulshada Facebook oo si weyn ugu aflagaadeeyo shakhsiyaad asaga ay colaad ay kala dhaxeeyaan yaa ka mid ah shakhsiyaadka colaad ay kala dhaxeeyaan cabdilaanto waxa ka mid ah wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye kaas oo ay isdagaaleen kadib markii Khadiija ay amartay in stage ama bandhig xaflad ay socotay wasiir Khadiija ay soo abaabushay fanaankan inuu doonay uu rabay inuu ka hayso hase yeeshee Khadiija iska soo erjiray taas markaa waxay ka dambeyn waxaa bilowday dagaal u dhaxeeya asaga iyo Khadiija Maxamed Diiriye yay tahay cid kale dagaalku kala dhaxeeyo cid kale oo dagaalka kala dhaxeeya ayaa ah in fanaanka Nimcaan Hilaac oo dagaalkii ugu xumaa ay kala dhaxeeyaan Nimcaan ayuu fanaankan u arkaa in asagana uu ka dambeeyo dadka qalqalatooyinka waaweyn ee xilligan u haysta muuqaalo uu soo duubay fanaankan cabdilaanta oo bartiisa xiriirka bulshada soo dhigay waxa uu si weyn Nimcaan Hilaac ugu eedeeyay inuu ka dambeeyo qalalaasaha iyo hanjabaada asaga loo geysanayo cabdilaanta waxa uu sheegay in hanjabaad culus oo kala kulmay Nimcaan Hilaac oo ka mid ah mas'uuliyiinta gobolada Waabari inkastoo cadeemo badan aan loo hayn fanaanka ayaa hadda ku xiran xabsiga dhexe xamar loo wareejiyay sida ila xogaal ay noo xaqiijiyeen waxaanu wajahayaa eedeemo waaweyn eedeemahaas ayaa suurtagal ah in fanaanka waqti dheer uu ku sii qaato xabsiga dawdaal wixii warar ay ku soo kordhaa arinta la xiriirta xariga fanaanka weyn cabdilaanto iyo waliba wixii macluumaad ay ku soo kordha isla wararkeena iyo waliba muuqaaladeena dambe ayaad ku daawan doontaan muuqaalka kan xigana saaxiib yaal